السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داوديال موقال كنان مانتا waxa ku saabsan yahay qiso dhex martay nin boqor ah iyo nin biyagada ah. Daawadayaal inta aynaan u guda galin muuqaalkeenan daawadayaasha igu taxan iyo kuwa igu cusub ee markaas danaynaya inay ugu soo biiraan waxa aan ka codsanayaa inaysan iga hilmaamin subscribe gambaleelkana furusi muuqaalada aynu soo galin maalin waliba aad u noqoto daawadaha u horeeya ee markaas daawada asxaabtaadan la wadaag wixii afkaar qaybta commentiga ayaad igu dheebi kartaa waadna ku mahadsantiin sida quruxda badan ee mar waliba aad uga falcelisaan muuqaalada aan idin soo galiyo bogga YouTube-ka. waxaa jiray nin biyagada ah oo la oran jiray Maxamed waxa uu waraabin jiray dadka isaga oo ku iibin jiray suuqa dadka magaalada ayaa aad u jeclaa akhlaaqdiisa oo wanaagsaneyd iyo muuqaalka nadaafadiisa oo sareysay. boqorka magaalada ayaa maqlay biyagadaha Maxamed ah waxa uuna ku yiri wasiirkiisa soco waxaad ii keentaa biyagadaha Maxamed. wasiirkii ayaa raadiyay waxa uuna soo helay biyagadihii waxa uuna u geeyay boqorkii ayaa ninkii biyagadaha ku yiri wixii maanta ka dambeeysa qasrigayga ayaad ka shaqeynaysaa waxaadna waraabinaysaa martidayda waxaadna fadhinaysaa dhinacayga oo aad iga sheekeynaysaa qisooyinka iyo waxyaabaha cajiibka leh. Maxamed ayaa ku yiri boqorka waa yahay amarkaaga ayaa jira waxa uuna ku laabtay hoygiisa biyagadaha Maxamed ah si uu ugu bishaareeyay xaaskiisa warka farxadda leh iyo taajirnimada soo socota. maalintii xigtay waxa uu soo xirtay dharkiisa kuwa ugu quruxda badan isagoo soo qaatay weelka uu biyaha ku siin lahaa martida. intaa kadib waxa uu soo galay qasrigii oo marti ka buuxdo waxa uuna bilaabay inuu biyaha siiyo marka uu dhameeyana waxa uu fadhiisan jiray boqorka dhinaciisa si uu ugu madadaaliyo qisooyinka iyo waxyaalaha qosolka leh. qorax dhacana waxaa la siin jiray lacagtiisa isagoo gurigiisa u soo hoyan jiray. in muddo ah xaaladdu sida ayay ahayd ilaa maalintii dambe uu galay wasiirka dareen maseer ah oo ku aadan booska uu ka degay Maxamed boqorka. maalinkii dambe wasiirka ayaa la kulmay Maxamed isagoo hoygiisa u sii socda waxa uuna ku yiri boqorku waxa uu dhibaato ku qabaa urka afkaaga ka soo baxaya. Maxamed oo lama filaan ay ku noqotay arrinkan ayaa ku yiri wasiirka maxaan sameeyaa si uusan urka afkayga u dhibin boqorka. wasiirkii ayaa ku yiri waa inaad afkaaga ku soo xirataa maro markaad imaanayso qasriga. Maxamed ayaa yiri waa yahay wasiir waan sameynayaa. kadib markii uu soo baxay waxa uu soo dubtay afkiisa waxa uuna soo aaday qasriga. markii uu u tagay boqorka ayaa aad ula yaabay arrinkan laakiinse kama uusan hadlin. maalin kasta sidan ayuu afka u xiran jiray ilaa ay timaado maalintii uu boqorku wasiirka weydiiyo sababta uu la jeedo Maxamed inuu afka maro ku soo xirto. wasiirkii ayaa yiri boqorow Maxamed waxa uu ka cabanayaa riixda daran ee afkaaga ka soo uraysa. aad ayuu u carooday boqorkii indhihiisuna way isbedeleen waxa uuna u sheegay xaaskiisa waxayna tiri nafsadiisa ayuu been u sheegay beri ayaana qorta laga jarin si uu tusaale ugu noqdo kuwa isaga la midka ah. maalinkii xigay boqorkii ayaa u yeeray ninkii qorgeynta u qaabilsanaa oo ku yiri ninkii aad aragtid isaga oo albaabka ka baxaya oo wata xirmo ubaxa qorta ka goy. waraabiyihii Maxamed ahaa ayaa shaqadiisa yimid sida caadada u ahayd. markii uu soo dhameystay shaqadiisa waraabinta ayaa boqorku waxa uu siiyay xirmo ubaxa balse markii uu aaday albaabka waxa uu la kulmay wasiirkii waxa uuna ku yiri Maxamed yaa ku siiyay ubaxan. Maxamed ayaa ugu jawaabay waxa ay siiyay boqorka waxa uuna ku yiri keen aniga ayaa kaaga xaqle. Maxamed waxa uu siiyay ubaxii isaga oo aaday hoygiisa balse ninkii qorta goynayay oo seeftiisa u diyaarsan tahay ayaa arkay wasiirkii oo wata ubaxa qorta ayuuna ka jaray. maalintii xigtay Maxamed waxa uu yimid shaqadiisa isaga oo wata weelkiisii misana afka u xiran yahay waxa uuna biyihii siiyay martidii joogtay. boqorka ayaa aad ula yaabay aragtidiisa maadaama uu u haystay in uu geeriyooday. waa uu u yeeray waxa uuna weydiiyay waa maxay oo aad afka u xiratay. Maxamed waxa uu ku yiri boqorow wasiirkaaga ayaa ii sheegay in aad dhibsatay urka afkayga ka soo baxaya waxa uuna ii amray in aan afka soo xidho si aysan mar kale ku soo gaarin. mar kale ayuu weydiiyay xirmadii ubaxa ahayd ee aan ku siiyay aaway. waxa uu ku yiri wasiirka ayaa iga qaatay waxa uuna igu yiri aniga ayaa kaaga xaq leh. boqorkii ayaa inta madaxa ruxay oo dhool cadeeyay waxa uu ku yiri hubaal isaga ayaa kaaga xaq leh. qofka niyadda wanaagsan iyo kan qalbiga xun meel islama maraan. marka aad qalbiga nadiif ka tahay
ilaahay waxa uu ku siinayaa nuur aadan ogeyn halka uu kaaga yimid dadka ayaa kaa jeclaanaya meel aadan adigu ogeyn ujeedka sheekadan ayaa ah qofka qalbigiisu yahay nadiifka lugooyo walba oo loo dhigo inuu alle ka badbaadinayo. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال هو التقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد.